samakuwar 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 sareya calanka suga biladhulkiisa samakuwar iyo bogadi sugan habalya suuba kugu salaane samakuwar. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray 140 guri oo waqooyiga magaalada Hargeysa looga dhisay dadka barakacayaasha ah. munaasabada furitaanka mashruuca dhismahan guryahan oo ay iska kaashadeen dawladda Japan iyo wasaaradda dibadejinta Soomaaliland isla markaana ay fulinaysay hay'adda UN Habitat oo ka dhacday deegaanka magaalo Jimcaale oo ah deegaan loo dhisay dadka barakacayaasha ah ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiirka dibadejinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka, wasiiru dawlaha shaqada iyo arrimaha bulshada, maayirka caasimadda Soomaaliland, mas'uul ka socda dawladda Japan, madaxa hay'adda UN Habitat ee magaalada Hargeysa, dadweynaha deegaanka magaalo Jimcaale iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliland. madaxa hay'adda UN Habitat ee magaalada Hargeysa Caasha Maxamed Axmed oo ugu horeyn munaasabada ka hadashay ayaa ka warbixisay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray mashruuca dhismahan deegaankan loo diyaariyay dadka barakacayaasha ee gudaha caasimadda Soomaaliland. dadkan waxa laga soo raray goobihii barkadaha biyaha Hargeysa oo wax weyn ka taray mashruuca biyo balaarinta Hargeysa oo si fiican oo mug leh u socda waqtiga xaadirkan. waxa la dhisay goobtii gudida way ku maamulayeen gudida waa la tababaray isla markaasna waxa loo sameeyay goobtii oo ah community centerkii goob caafimaad oo sida aan sheegay iyo barkada weyn ee ka wada dhaxaysa. waxa la tababaray 80 dhalinyaro ah oo la baray xirfado kala duwan sida dawaarka, cuntada karinta, laydhka iyo qurxinta kuwaas oo loo habeeyay qalabkii ay u baahnaayeen sida ay ugu xoogsan lahaayeen. wasiirka dibadejinta Soomaaliland Mudane Cali Saciid Reygal ayaa madasha ka sheegay in markasta wasaaraddiisu ay ku hawlan tahay dibadejinta dadka barakacayaasha ah oo uu sheegay in waxqabadkii ugu badnaa loo fidiyay muddadii ay jirtay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. runtii waxa weeyaan waa wax aad iyo aad loogu farxo dad iska fadhiya oo qoysasa oo 1,200 qof oo 145 qoys oo guryo aanay shaqaysan dhul aanay shaqaysan la dejiyay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo waa wax lagu farxo. waxaan leeyahay dadka loo dhisay ee ka faa'iideysanayo waa inaad ilaashataan guryaha la idin dhisay iyo dhulka iyo mas'uuliyadda ay saaran intaba way ilaalisaan. dhulka dawladda iska dhulka ay dadkani degan yihiin iyo dhulka kuwa kale ee danyarta ay degan yihiin iyo kuwa danyarta soo socota la siin doono intaba dawladda ka mas'uula. dhulkana sharciga dawladda ka mas'uula. marka waa in sida loo ogaado oo qof waliba uu sida ku talagalo uu ogaado. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka, wasiiru dawlaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo duqa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay xil weyn iska saartay sidii hoy loogu sameyn lahaa dadka barakacayaasha ee ku sugan guud ahaan gudaha Soomaaliland. waxaa maanta farxad loo ah inaan furno xaafadan loo dhisay dadka danyarta ee ka kooban 145 qoys ee halkan maanta aan joogno iyadoo laga duulayo baahiyaha jira iyadoo laga duulayo in danta guud ee naga dhaxaysa marka loo baahdo magaalo kastoo Soomaaliland tay doonto ahaatee in ummadda reer Soomaaliland diyaar garowdo maadaama meesha danta guud muddo ku soo noolaa qof oo dadka xaq gaar uga lahayn aqalka dawladdu ku soo jiray 20 sanadood xaq gaar uga lahayn nasiib baa siiyey meesha banaanee dawladdu lahayd uu deganaa nasiib baa siiyey iyadoo taa laga duulayo markay timaado danta guud waxa muhiim ah in qofku u dhagan nuglaado in danta guud uu ka lahayn dadka ee meeshii kale loo maartay loo asteeyo tugo. marka hore waxaan u mahadnaqayaa qoysaskaasi 150 qoys ee u dhagan nuglaaday in meeshii ay deganaayeen ee halboolihii magaalada caasimadda Hargeysa ee biyaha ay ku noolahay kaydkoodii dul deganaa in ogolaadeen loo soo raro
meeshii kale loo asteeyey. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xariga ka jaray dhismaha deegaankan loo diyaariyay dadka barakacayaasha ee ku sugan gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Nuuridiin Cabdullaahi Culi Joog iyo Rafiiq Rashiid Bullo, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.